السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka waxaan ka salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Salaan kadib waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo arrin dhowr jeer ugu soo noqnoqotay oo arkay Facebook inay bariyahan bahaysato iyadoo waliba aad ma taqaana u xabsi iyo naxdin badan aadna aan uga murugooday aadna aan uga naxay runtii aniga intii khayrkayga ahba walaalayaal waxaan rabaa maanta umada soo tahriibaysay ma idinko dhibaatada u jeeda oo ma taqaana u jeeda in ay khayrkiin la gumaadayo oo la shaabuugaynayo oo koronto lagu dhajinayo inaad hadda kadib soo tahriibtaan diyaar ma u tihiin waxa kaloo rabaa inaan weydiiyo umada Soomaaliyeed ilaa imisay soconaysaa arrintaani ilaa imisaynu wadi karnaa ilaa imisaynu qof intaynu lacag ka bixino oo inu soo kaxayno oo inu soo dhaafino haddana ku kala la qabanaya haddana ilaa imisay soconaysaa ma ka fakarteen taas maxaynu yeelnaa maxaa inoo tala ah aniga maanta waxa iiga xanuun badan wax walbaba runtii hooyada calaacalaysa ee yaa muslimiin haysa ee maanta dhibaatadu haysato oo iyadu xero qaxooti ku jirto oo iyadu dhibaataysan kuwa hadda u soo socda inay soo tahriibaana oo raba inay jidkaas qodaha la soo maraana nimayo hooyadiina saa ugu hoysaan miyaa rabtaan si walbaba ha noqoto anigu hadda maanta maxaa koos gareeyay in maanta tii shaabuug la qaato la dhaco kamarada la soo galiyay Facebook yaa ninka magafaha ah waa shaqo cusub oo hadda la bilaabay weeyaan waa sheekada meesha ay ugu fududahay oo lacagta laga urursan karo ma dadkii dhibaatadu roob ku laayeen ee baahidu laysa oo indhaha la ah oo socon la ah oo xanuunsana oo beeshi oo tabcaanka baynu caawinaa mise ninka fiidiyowga intuu ka soo duuba gabadha leh eeday lacag ii soo dirdha baynu la caawinaa goormaas iswaarisan doonaa goormaynu isqabanaynaa maxaase looga hadli waaya arrintan maanta gabadha dhulkii hooyo joogta ee shaaheeda caanaha ariga ku cadaysanaysa ee ma taqaana balaayadu aan haysan oo caafimaad ku haysato oo gurigooda waxaan intuu soo wada iyadoo gabara halkaas magafe ee hooyada caloosha ay uga holcinayso iyadoo wadankii joogta ma la isweydiiyay taas ilaa imisaynu wadi karnaa anagu oo socon karnaa oo ilaa imisaynu caawinaynaa ilaa maanta kuwaan ugu horeeyaan kuwaynu caawinay kumanaan kuna hora la soo caawiyay maxaa inoo tala ah sheekada tan hadda maanta kaliya kuma ekaanayso sheekada waso because 3 bari gudahood ayaynu waxaynu ku aragnay intaasoo qof 3 mise 4 video baa la soo duubay oo Soomaaliya oo la shaabuugaynayo laba wiil iyo gabar horta anaaba arkayba 3 anaaba arkayba 3 ana arkay marka waxaan idin weydiinayaa walaalayaal ilaa imisaynu arrinta wadi karnaa ilaa imisay soconaysaa ilaa imisaynu hooyo ka oohin karnaa ya ilaa imisaynu taynu baxno Soomaaliyay wadan kale tahriibkeeda iska deynayna anu Soomaaliya waa soo arkay nimco iyo barwaaqa taala ninkii ilaahay iimaankiisa ku sugan uu joogi karaa maxaa meeshan yaala maxaa laga soo ordayaa maxaa wadankeena uga soo cararaynaa ya walaalayaal aniga waxay tala iga tahay haddii ilaahay laga baqayo bil rabadaana lagu jira nin walba ciidiisa waa lama huraan nin walba gurigiisa waa lama huraan aniga waxaan aniga idin dhihi lahaa walaalayaal tahriibku meel nafla ma aha tahriibka waad ku dhamaateen waad ku dhibaataysanteen waad ku go'deen dhalinyaro way dhamaatay ma fahantay dhalinyaro way dhamaatay dalkeeni hooyo meeshaynu maanta u dadaali lahayn oo aan maanta wax u qaban lahayn oo dhalinyaro aynu iskaashan lahayn oo hooyo iyo aabbo maanta dadkii waa dhinteen wax dhintay iyo wax bad laqday iyo wax xabadilaysay bay noqotay walaalayaal tahriibka iska daaya walaalayaal tahriibka inaga daaya wallahi dadkayga waan jeclahay Soomaali waan jeclahay maanta meel aan u dhaafsanayo ummadayda Soomaaliyeedna meel ma jirto maanta qof aan ku abtirsado maanta Soomaali baa ugu horeeya igaraale ahaada Soomaali baa ugu horeysa waxaan maanta ku abtirsado tahriib maanta meel aan ku soo degdegno ma aha magafa inuu maanta naga faa'iideysto gabdhaha iyagii shaabuugayna dan nooma aha
meeshaynu dadaal lahayn oo maanta aynu ka gaari lahayn heer saynu abaaraha iyo dhibaatada uga baxno saynu ummadeena maatada u caawino haddaynu kasoo didno aynu kasoo dhoofno aynu kasoo tahriibno yaynu caawinaynaa ma dadkii baahnaa baynu caawinaa mise tahriibka dadka imaanayo oo dadka hooyooyinka oohinayaynu caawinaa dan inooguma jirto waddankeena kasoo cararna dan inooguma jirto anu maanta qurbaan jooga aynoo qurbo waxay tahay dalkiina waa soo arko ummadda dalkii joogta say u nool yihiin waa soo arka marka ha laga tashto waa idin baryayaa kasoo hadla culumay kasoo hadal fanaaniinay kasoo hadla ummadda waxgaradkay kasoo hadla siyaasadiintu ha ka hadlaan madaxdu ha ka hadasho ummaddu ha kasoo hadasho tahriib dan inooma aha maalin walba fiideo inuu magafa lacag inooga urursana dan inooguma jirto caruurteenu inay waxaas arkaana dan inooguma jirto caruurteerka ha barakicinina caruurteerkoo da-diina idinka dambaysa ha barakicinina ha nacsiinina waddankiini hooyo walaalayaalow waa iga talo aynu iska dayno tahriibka aynu u tabaabul inteena aqoon tale inteena wax baratay waddankeena aynu wax tarno yaynaan tahriib dadka ugu baalkeenin ugu talinin maanta wax walbaba hooyo oo hinteeda qofka u adkaysan kara yaa weeye uurkaas iyo calooshaale maanta intii hooyo oo idoo maanta caruurteeda ku weyday maanta doomihii halqamayay oo badaha galayay maanta walaa cadad walaa xisaab intii idinkoo waa daawateen anu waan daawaday idinkuna markhaanti baad ka tihiin allana wuu ogyahay intii hooyo maanta ooyaysay ma damba inoogu jirta maalin walba inuu hooyo gablanto intii xabada inaga laysa waa inaga laysa intii bada inaga cuntay waa inaga cuntay intii dad la waaye calafkoodu baa qornaa laakiin in dambe anu waxaa idinkala talinayaa bilaa caleeg inaga daaya walaalayaalow bilaa caleeg inaga daaya allihiina u noqda dadka waxgaradka culimmadu ha kasoo hadasho fanaaniintu ha kasoo heesaan oo ha kasoo hadlaan ha laga soo aad ha looga soo hadla arrintan iyada ah anu waan runtaa fiican waan ka calool xumaaday inaa arko gabar Soomaaliyeed oo mataqaanaa nin shaabuug la dhacayo oo ooyeysa oo balanbalaysa oo mataqaanaa maantana filinka kan waa dawayga kaliya